Somaliland Ahmed Mohamed Mahmoud Silayo ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobay oo hogaaminaya wakiilka u qaabilsan qaramada midoobay Soomaaliya iyo Somaliland. Wafdigan ayaa kulamo go'aan la qaatay madaxweynaha Somaliland iyo guddida abaaraha uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland. Kulamadan oo warbaahintu dibadjoog ka ahayd ayaa markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland Ali Hussein Ismaaciil Ali Shombe isagoo ka warbixiyay isagoo wasiirku faahfaahin ka bixiyay wafdigan iyo ujeedada ay ka wada hadleen. Ali Hussein Ismaaciil Ali Shombe wasiirka wasaaradda qorsheynta oo arintaasi ka hadlaya ayaa yiri sidatan labadii maalmood u dambeysayba waxayna la joogay wafdi ka socda qaramada midoobay oo uu hogaaminayo Peter de Klerk oo ah ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan gayiga Soomaalida isla markaana agaasimaha mashaariicda iyo horumarinta ama resident coordinator ka aba waxa la socday Richard Trenchard oo ah agaasimaha FOS Soomaaliya iyo Somaliland oo isaguna socdaal ku tagay ilaa magaalada Qooljeed oo soo maray uu ka soo horeeyay maalin wuxuu la kulmay wasaarado badan oo ay ka mid yihiin hay'adaha samafalka waxa ka qayb galay kulamadan guddida abaaraha oo gudoomiye u yahay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland waxa laga wada hadlay sidii ay inooga caawin lahaayeen oo iyagoo ka jawaabay inuu yimaadeen baaqi ay soo saaray madaxweyne ku-xigeenku ee la xiriiraya abaaraha ba'naa ee baahsana ee dalka ku fiday waxa inoogu yimaadeen si wixii gacan ay ka geysan kareen uga geystaan indha ugu sameeyaan innagana ay inoo weydiiyaan waxaan u baahanahay meelaha u baahan laga caawiyo waxa kale oo raacsanay inaanay ku koobnaan caawinta abaarihii marka dhacay way roobkii baa daayay baa la oranayaa laakiin roobku dhibaatooyin buu la yimid qofkii xooluhu ka dhintaan ama beertii ka dhamaatay aan haysan xoolayo beer haruuru beerto toona ama seed roobku waxba uma tarayo sidii ay uga caawin lahaayeen iyadoo taani laga duulayo muddada dhow iyo muddada fogba si wanaagsan baa soo afkartay dhanka kale waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta ka socotay wafdigaasi iyagoo ka warbixiyay ujeedada socdaalkooda Idris Ismaaciil Cabdi telefishinka caalamiga Somali News magaalada Hargeysa.